waxaan jeclahay inaan aad iyo aad idinkaga mahadnaqno kasoo qaybgalka aad kasoo qayb gasheen aqoon wadaarsigan maalinlaha halka maalin ah oo aan kaga hadli doono ujeedada waa soo sheegi doonaa haddii ay beedmee runtii inaad usoo hortaaneen waqtigiina qaaliga ah aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinaynaa aqoon wadaarsigan sida waraaqahaba invitationka ku aragteen waa ujeedo badan laba ujeedo aan runtii ugu yaraa baan ku leenahay haddii ilahaydmo aan rabno in aad nala jiidaan midda horeto waxa weeyaan horta waxa weeye waa dilmilicsiga dhibaatada siyaasadda Soomaaliya arrimaha siyaasadda hadda dad badan baa ka hadlaya bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan baa ka hadlaya baraha bulshada hadda Soomaalida haddii aad aragto iyo website-yada iyo idaacadaha telefishinada iyo meesha waxa laga falanqeynaya waa la falanqeynaya waa laga hadlayaa waxay noqotay top of the day wax yani caam ah oo laga wada hadlayo ayay noqotay waana hadda waana ku aqoon waqti oo waxa weeye waxa infaala cusub iyo waxba isbedel baa jira isbedel hab dhaqan siyaasadeed baa jira oo muuqda marka kaas keentay in marta muddo laga hadlo arrimaha siyaasadda kaasi waxa weeye horta inaan dib u milicsano inaga dhibaatada siyaasadda Soomaalida xaggee bay taallaa madaxtinimadu sideedaba waxay ku dhisan tahay saddex waxyaalood waa aragti waa inuu jirtaa qofka hogaamiyaha aragti waa inuu leeyahay waa diraaya ama dareen aragti waa inuu leeyahay aragti markuu leeyahay aragtida kaligeed kuma filna dadaal waa inuu sameeynaya dadku waxa ay ka filayaan waa inuu dadaal u sameeynaya dadku waxa ay u soo jeedinayaan fikradaha u soo jeedinaya aqoonta iyo daraasaadkana waa inuu quudanaya oo soo dhaweynaya oo dadka rabitaankooda waa inuu soo dhaweynaya hogaamin xumo waxa ku xigta xukun xumo waa isla xiriiraan labadaas waxa ka dhasha khayraadka oo si qaldan loo maamulo khayraadka uu ka mid yahay awoodda siyaasadda waa khayraad marka khayraadkii wadanku iska lahaa ayaa musuqmaasuq galaya oo si qaldan loo maamulaya marka waxa dhimanaysa kalsoonidii dadku ay ku qabeen nidaamka markaa jira haddii taasi ay timaado musuqmaasuq yimaado oo dadkii kalsoonidii dawladda ay ku qabeen ay baaba'do waxa imaanaysa sharcigii markaas inuu isaguna fawdo noqdo oo sharcigii uu shaqayn waayo taas markay timaado waxa iyaduna imaanaysa waxbarashadii ayaduna nidaamkii waxbarashada iyo nidaamkii habfakarku isaguna inuu shaqayn waayo deegaanka iyo nolosha miyigu waxay taagan yihiin nidaamkeena siyaasadda 1990 meeshii uu taagnaa deegaanka miyigu wuxuu taagan yahay inuu fashilo ma aha arrin la sii dhowran karo waxyaalo kale halkaa ha ka bilowdo badbaadinta dhaqaalaha iyo horumarinta dhaqaalaha halkaa ha ka bilowdo ma qaban karto dawladdu oo badbaadinta deegaanku waa arrin kharaj badan oo farsamo badan u baahan laakiin wacyigelin bay u baahan tahay in la ogaado talada lagu darsado سعيد برسيديشن كنا سو جيريي بروبلمka Soomaalida isagu waxa ka leadership xagis aniguna waxa weeye inka soo qayb ahaan la qabo hadana waxaan qabaa inay tahay mushkilada weyn Soomaalida haysata constitutional crisis wax ama dastuurka ama nidaam wax raaca oo wax la raaco aanay ahayn oo sax waxa kaliya oo aan isleeyahay dastuur la raaco ayuu lahaa waxa weeye 60 ilaa 68 dawladii la inqiraabay oo iyaduna dhibaatooyin badan wajaheen oo maxaan ku raahayay ka hor yimaadeen yani constitution la raaco dawladaas ayaa la sheegi karaa marka anigu mabda'iyan waxaan qabaa in arinta dastuurka focuska la saaro Soomaaliya waxa weeyaan way burburtay oo institutionadii ama hay'adihii dawliga ahaa oo dhan baan jirin mar haday kuwaas oo jirin hogaamintu marba waxay noqonaysaa mid daciif ah waa fikirkan waan qabo weeye
waxaan jirin oo kale Soomaalidu ayaan sidii burburkii u dhacay oo dowladda dhexe uga baxday meesha waxaan jirin fikri midaysan oo Soomaalidu leedahay sidii dowladnimadeeda ku hanan lahayd fikri u midaysan tahay ma jiro ilaa hadda mar haddaan fikri midaysan oo Soomaalidu sidii ay ku hanan lahayd dib ugu hanan lahayd dowladnimadeedii iyo qarannimadeedii iyo xuduudaheediiba ay jirinna way adkaanaysaa nin kastoo liidar oo yimaada sidii uu hogaamin lahaa way adkaanaysaa oo iyaduna waxay noqonaysaa caqabad hortaagan marka cadaaladii laga soo tago waxa kale oo jira oo mar walba iyaduna taagan dadkuna ayaan marba si u arkayaanin dadkana hogaamiyaashana marba lagu eedeynayaa oo ay keenayso daciifnimada iyo tabardarrida iyo tafaraaruqa bulshada Soomaaliyeed keenaysa waxa weeye faragelinta caalamku ku hayo Soomaaliya ama daris ha noqdo ama mid kale ha noqdo mid dan kale ha noqdo iyo mid dan gaar kale ha noqdo iyaduna waxay noqonaysaa mid uu qofka hogaamiyaha uu marna wax ku wadi karin waayo qofka hogaamiyaha hadduu yan resource haysan hadduu yan fikri midaysan oo dadkiisu leeyahay haysan hadduu yan ciidan isagu uu leeyahay oo amra haysan haddee waxa uu keeni karaa waxa weeye hadduu meel Israa'iil cadaalad baa sameeyay cadaalad maxaa ku sameynaysaa cadaalad waxay u baahan tahay imkaaniyaad bay u baahan tahay cadaalad waxay u baahan tahay inaad imkaaniyaad haysato aad ku samayso oo dadkii markaa ku qanciso oo dadkii ay qancaan oo qarannimadii wadanka aad ku hanato midaas horta problemka Soomaalida kaas baan anigu ku soo koobi lahaa dawladda federaalka runtii fursadaha haysa waxa kamid ah inay iyadu empower garayso oo dhiiri geliso isteediyada jira inuu state walba isagu fuliyo waajibaadkiisa wixii ay ku support garayn kartona ay ku support garayso waayo haddii ay tiraahdo dawladdu anaa amniga wadanka sugaya ma sugi karto security-gana ugu daran maanta wadanka marka waa inay samaysaa delegate-ka federaalku siiyey isteediyada in state walba meesha uu joogo lagu empower garayo inuu isagu territory-ga uu xukumo oo sugo amnigiisa ciddii sugi weyda oo state-kii dhismay oo sugi waaya amnigaisa territory-ga sugaysa dawladda federaalka markaa wax ay ku tirbiigayso ama ciidan ama wax kale ama caawimo caalamiya ay u keento gacmaha badan oo ay leedahay isteediyada dadka hayaana ay noqdaan in kuwa support garaya dawladda dhexe oo ay isku tala noqdaan fursadda uu haystaa maanta inuu maartay sameeyo wuxuu kaloo haystaa public perception maanta ama dadku waxay qabaan buu haystaa oo fursad ah taasoo uu ku sameyn karo hay'adihii uu ku toosin karo constitution-kii uu saaxiibkii xagaa ka hadlay uu ku sixi karo wixii khaldanaa ama khaldamay ama wixii dhinaa wax lagaga qaban karo runtii Soomaaliya waxaa kamid ahaa siyaasad ay gaari kartay ma aysan jirin ilaa iyo waqtigii xorriyadda aynu qaadanay ilaa maanta aynu halkan joogno siyaasadan dhihi karno waxaanaan rabnaa dadkaanaan kula heshiino hadday noqoto dariska hadday noqoto caalamka hadday noqoto maxaan ku idhaahdayeen dunida kale ma aysan jirin taasna waxay dhalisay inaynu iska ahayn dad emotional ku base garaysan oo hadba qofkii markaa haya ma aynu dhihi jirnay jallow heblow ama gulwadow heblow whatever laakiin siyaasad dad khubro ah oo dalka siyaasad fariisiyay ma aysan jirin waxay ila muuqato horta marka hore inaynu dhisno maxaan ku idhaahdayeen meeshaynu u soconno horta maxaa qaran maxaynu qabsan karnaa maxaan seen dadka kula heshiin karnaa maxaynu samayn karnaa siyaasad noocee aynu dubkin karnaa sidoo kale dawladdan hadda jaanis bay haysataa shacabku emotionalka waqtiga uu yahay inay kaga faa'iideysato waxaa anigu kaloo is oran lahaa in bal shacabka laftirkooda la fahansiiyo maxaan ku idhaahdayeen ama la sameeyo wada tashi iyo horta waxa ay yihiin iyagu laftirkooda in la ogeysiiyo Soomaaliya hadda waxay ku jirtaa xaalad adag unique situation unique ah oo aan la arag hadda kor aynigiisa therefore waxay u baahan tahay dad unique ah iyo xal unique ah waa tartameen madaxtinimada loo tartamay ama dowlad goboleed ha noqoto ama madax sare ha noqoto dowladeed
ama ha noqoto mid degmo ama xaafadeed in madaxweyne la noqdo ama la noqdo waxaa jagada unba loo tartamaya majority-geedii dadku ma ay gaarin way arki lahayn waxaan arkaan resultiga waxaan aaminsanahay marka anugu 3 qodob ciddii heshay leadershipku waa wax farkutiris adduunka ilaahay ma badinba dadka leaderska ma badnaa waayo leaderska waxaa lagu yaqaanaa quluubta dadka ayuu intuu dhaco isu dumi karaa waa inuu leeyahay political majority qaangaarnimo siyaasadeed waa inuu leeyahay qaangaarnimo siyaasadeed time uma hayno fasiro in la fahmayo waxa weeye ninkaasu waa nin loo tuuray libaax loo xiray wey ninka Soomaaliya madaxweyne noqonaya waa inuu u qaataa in libaax loo xiray therefore waa inuu horta isagu siyaasiyiinaa waa inuu siyaasiyiinaa waayo meesha ku socdaa waa meesha uu yahay maaha inuu doonto nolol isagu horumar ma aha kow waxaa loo baahan yahay inuu leeyahay integrity waxa weeye cifana waxa weeye waxa afka leedahay waxa uu ka jiraa in isku mid yihiin marka dadweynaha oo dhan lagu sheekeynayso isku si waxaad ku sheekayso xisbigaaga markaa ka sheekeynayso waxaad ku sheekayso saaxiibada waxaad fikradaada markaad u jeedinayso xaaskaaga iyo carruurtaada markaad u jeedinayso kulli waana isku mid yihiin isku sii yihiin tan saddexaad oo very important ah inuu isagu yeesho weeye ciidamada ammaanka ownership of the security forces waa inuu yeeshaa waxaan isleeyahay qodobka koowaad oo waddankan u baahan yahay waxa weeye dib u heshiisiin haddaad tiraahdid ammaan baan sugayaa laba ciidan oo labaduba hubaysan yihiin oo shalay iyo maantaba islaynayay intaad isku dartid uguma yeeli kadhid ciidan qaran weeyaan oo iyaga ruuxooda ka dhex qarxaysa security aad sugi kartaana ma jirto wax weyn oo cilmi ah oo kale oo aad saacidsan kartaan iyo muxuu ahaa gacmo shisheeyaa nagu jira iyo howlahaas oo dhani waxay noqonayaan hal bacad lagu dhisay as long as adigu aadan israbin oo cadowgaaga koowaad markii la yiraahdo yaad u taqaanaa reer hebel baan u aqaanaa uu qoranayo anigu waxaan isleeyahay arrintaas madaxina ma daaweyn karto oo nabad ma keeni karto dastuurna wax ma keeni karo waxa weeye marka hore colaadu inay horta meel ku soo afjaranto fargelinta shisheeye waxay ka mid tahay caqabadaha ugu waaweyn oo waddankayga haysta anigu waxaan ka mid ah dhalinyarada Puntland waxyaabaha aan aad uga dhiidhiyo oo aan aad uga naxo markaan arko oo aan ka fikiro mustaqbalka waddankan sidee u noqonaya dad iyagii aan tashan karin in loo taliyo mooyaane waynu nahay waxaynu aragnaa in ciidamada nabad ilaalin waddanka joogaan wadama shisheeyaan oo keenay kuweeni maxaa la inoo dhiso waay haddii ay beesha caalamka la sheegay ay dhab ka tahay inay Soomaaliya xal ka gaarto oo dadkan iyo dalkan maxaa la yiraahdaa ruuxa qarniga burbursanaa ay hagaajiso waay baa loo dhisi waay ciidanka waddankeena intii dawladda soo martay haddii si fiican oo yacni ay beesha caalamka waxay dhab yihiin intaasoo ciidan qaran oo aan amisom iyo wadamo sheegaga maarnaa la inoo dhisanaa hogaamiyaha aan u baahannahay ma aha hogaamiye ay wadamada shisheeye ama dadka shisheeyuhu ugu yeeriyaan waxaan u baahannahay hogaamiye ka fikira dadkiisa isagoo yacni aan wadamadii ku boodaynin oo hadda ma joogno stage aynu niraano caalamka la shaqeynayno saayeen laakiin qofka uu dantiisa ku wato uuna ka gaaro yacni ku baraarugsan yahay mu'amaraadka iyo waxyaabaha loo shirqoolada loo dhigayo hogaamiyahaas aan u baahannahay farmaajo waxaan leeyahay fursadda uu haysto waxa weeyaan shacabku way taageersan yihiin waxa weeyaan waxyaabo badan oo ay shacabku doonayaan haddii ay dhab ka tahay hogaamiyenimadiisu ayuu samayn karaa waa inuu daacad ka noqdaa maxaa la yiraahdaa shacabkuna filashadooda faraha badan marka baraha Facebook aragtid dadku wax badan bay filayaan laakiin filashada faraha badan in xoogaa la xadido oo la yiraahdo bal intee wax lagu qaban karaa maxaa la samayn karaa waxaan u malaynayaa intaas aan ku soo koobaya wanaagsantii Soomaaliya maanta wax soo dhacay wixii la soo maray waa loo yahay dowladda soo maray dowladda dhacay dowladda yimid madaxweynaha doortay madaxweynaha tagay waa loo soo abdaaray waa laga soo abdaaray hadda waxaan joognaa waqti baan joognaa waxaa la doortay min madaxweynaha Soomaali jinsigiisu meesha kulli waa la soo baxay soo dhaweeyay waxaan qabaa madaxweynaha doortay qalad bafahmaya hadduu u qaato Israa'iil soo dhaweeyay ma aha Israa'iil soo dhaweeyay
waxa weeye jayn dadku qaatiyaan bay joogeen feedab bay joogeen waxay ka joogeen maamuladii isxigoo dhan oo soo maray meesha dad cusub bal inay yimaadaan ayay ilaahay ka baryaayeen ilaahayna waa keenay hadda prime minister cusub iyo madaxweyne cusub kuwii khayr qabaa allah ka dhow laakiin waxaan qabaa hawsha taal iyo hawsha laga sugaayo waa kala fog yihiin shacbigu waxa uu sugayo waa ka balaarantaa meesha midda labaad waxa weeye dowladda inoo jirta oo xamar ma leh accountability qofka mas-uulka saa ula xisaabtanto nidaam ma leh waayo dastuurku ma qoraayo dastuurku ma kala sheegayo xilka madaxweynaha kan prime ministerka kan wasiirka kan wasiir ku-xigeenka iyo wixii ka xiga marka ninkii loo xisaabtami karo immediately in la qoro horta madaxweynuhu ma ceremonial ba executive ba ma baalka nooceeya maxaan kula xisaabtayna prime ministerka kenya haddaynan kuwa xisaabtamin musuqmaasuqa laga dagaalami karin xisaabta baa jiri karin nina maxkamad loo geyn karo marka talada ugu horeysa waxaa weeye war bal marka horeeto in la ogaado see loola xisaabtamaya nidaamka haddaan taa la samay wax jiraya ma jiraan marka waxaan waa constitutionku inuu yahay waxa ugu horeeya oo dalka lagu hagaayo haddii aan kaa la hagaajin inta kale waddo ma shaqaynayso waayo waxay buuggii lagu shaqayn lahaa ayaa baqan marka waxaan ula jeedin lahaa marka hore dastuurka in la saxo mas-uuliyadda qof walba ku leeyahay dastuurka la qeexo la xisaabtankiisa la qeexo ciidan waddanku inuu u baahan yahay oo marka mid shaqeeya oo ajaaniba oo kun iyo dheeraad iyo raashinkooda qaata kii soomaaliga ahaana $100 loo waayay $100 oo keliya raashin iyo hubna aan loo ogolayn kanna wax walba loo ogolayay waanu aragnaa in laga baxana waa loo baahan yahay tallaabo geesinimo leh oo lagu dhiirado in ciidan la dhisaa looga baahan yahay farmaajo haddaba keligii ma dhisi karaya maya dhaqaale ma hayaa maanta maya haddayna ka dhab tahay taageeradii aynu taageeraynay nidaamkan cusub iyo madaxweynaha cusub aynu ka dhab tahay gudo iyo dibadda Soomaaliya oo waliba khaasatan dadka dibadda jira ugu badan yihiin waa in la sameeyaa sanduuq qaran oo bishii lagu shubo lacag $5 $2 $3 $1 bishii hadday intaa lagu shubo waxay noqonaysaa wax dhismaha ciidanka iyo dowladda ka badan ugu yaraan hal sano waa in la wadaa sanduuqa ugu yaraan dowladda lagu taageera waxaa jira dana qabiil oo la siyaasadeeyey oo marka waxaa ka faa'iidaystay dowladihii dariska ahaa danaha qabiil oo aan iswaafaqsanayn iskana hor imaanaya fursadaha furan haddaan soo koobo number 1 dowladdan hadduu farmaajo yahay hogaamiye sax oo wanaagsan hogaamiye xun ka cabanayna Soomaa kow waa inuu ka shaqeeyaa sidii system uu sameyn lahaa uu ka bilaabaa dhamaystirka dastuurka adduunka wadan waxa jira halku dhaga meel aan sharci jirin waa meel aan dad ku noolayn adduunka meel aan system waxaan xumaan oo dhan oo dhacay wax ka faa'iideysanayaan sharci darrada marka taas number 1 inuu hadafkiisa koowaad ka dhigto xoojinta maamul goboleedyada jira inay bixiyaan adeegyadii asaasiga looga baahnaa dhammaan waxa laga hadlayay xoolaha waxbarashada caafimaadka inuu maamul goboleedyada ku empower gareeyo aysan dowladda federaalka xoog isku saareen inay iyagu wax bixiseen laakiin maamul goboleedyada ka shaqeyso sida u bixin lahayn adeegyadii looga fadhiyay waa wax loo baahan yahay si fiican ay ula shaqeeyaan dhisidda ciidamada qaran waa arrin asaasiya waxaana ka horeynaysa u malaynayaa in horta inta hadda waxa la hayo la hagaajiyo ilaa intii burburka waxa la magacaabay general in aan xataa darajadii ma garanaysa processka caadiga soo marin baa wax laga dhigaya general waana waxa ugu caqabad haysan doonta marka ciidamada la dhisayo dowladda taas waxaan u malaynayaa inay u baahanayso shaqo badan oo priority-ga inay ka dhigto arrimaha asaasiga ah oo ka dhigo numberka arrimaha kale aan tala ahaan halka aan u arko waxa weeye la dagaalanka musuqmaasuqa madaxweynuhu waa inuu iska bilaabaa xafiiskiisa waa inuu xafiiskiisa ka bilaabaa institutions xoog leh oo cadaalad iyo
dad dabagalana uu dhiso oo musuqmaasuqa la dagaalamo. caqabada aan u arko intii aan soo sheegnay waxaa aan ku darayaa in hubkii dowladda uu u gacan galay shacabkii. marka waxaa loo baahan yahay hubka dhigis in dadkii lacagtii loo celiyo oo bal shacabka uusan mar dambe si nabad iyo amni loo helo because dowladdu maxay wax maamushaa ciday wax xukumi kartaba male nin walba wuxuu haystaa qori maxay taqalaa'il baa loo kala baxay waa in marka hore hubka dhigis fiican la sameeyo. taas waa qodobkii koowaad. qodob kale oo ku dareeya waxaa weeye maadaama qabaa'il la isu laayay oo soomaalinimadii iyo wadanimadii ay dhimatay waxaa iyadana fiican in la helo in la soo celiyo wadaniyadii iyo sidii dadkii walaalayntii ee dhabta ah loo sameynaa. heshiisiintaasaa ka mid ah in heshiisiin dhab la sameeyo wax la isu celiyo sida walaashay agriim aad baan ugu raacsana. wada heshiisiin maba dhicinba waa in la helaa wada heshiisiin dhab ah la isu celiyaa la israaligeliyaa maaragtay khaladkii dhacayna la qirtaa. aqoon darro dowladnimo Soomaaliya dowlad ma taqaan horena ma oqon haddana say ku barata waa adag tahay waynood mar walba waxaan soo dhexgelinaynaa qabiil waxaan soo caadifad waxaan soo dhexgelinaynaa waxyaalaha aynu minority-ga hoos laga fiirinayo war dowladii waa tii dowlad la tartanta oo la jaan qaada hadday ka aqoon badan tahayna saaxiib ka dhigata oo aqoonta kala wareegta hadday cadow u tahay inay iska difaacda laakiin maaha qabiil la diriraayo maaha dowlad. taas horta waa in iyadana aynu tixgelinno waxaynu ku dhisannahay qaran qabiil ku dhisan baynuna waa intaa laga bedelaa marka. anigu halka waxaan arkaa maanta madaxweynaha la doortay jaanis buu leeyahay kuna tilmaami maayo caadifad iyo baalki waxaan u dareemayaa inuu haysto jaanis uu wax ku xallin karo hadduu qabiilka ka dhashayna qabiilkiisa waa rabaa hadduu qabiilooyinka kaleeto oo dariska u leeyahayna waa rabaan dibad iyo gudoba shacab baa looga tago waxaa la rabaa inuu marka shacabka loo tabay keliya uusan ku soconayn caadifadda ka bedelo manhajka dadku rabo uu jiido. fursadaha jira waxaan u arkaa anigu abaabulaanta dadka shacabka ahi uu abaabulan yahay waa fursad jirta waa tii 69 oo kale waxay u baahan yihiin kaliya in la abaabulo oo laga faa'iideeyo oo la horgalo oo gacmahooda wax lagu qabto taas waa fursad jidha waaye. fursadda kale waxay tahay dadku waa daalay dowladnimada dadku waa ka daalay miyi iyo magaalo wuxuu u baahan dowladdu u baahan yahay ama miyi hala joogo ama magaalo hala joogo ninka miyiga jooga wuxuu u baahan yahay dowlad uu dugsado oo dhulkii daaqii laga biyey iyo xaalufinta iyo deegaanka lagu cayaarayo iyo wuxuu dowladdu u baahan yahay. waa fursadda labaad waay. tan kale fursadda saddexaad waxay tahay oo ii muuqata aniga waa naca Soomaalidu ay nacday ama laga nacay dibadda ama iyadoo ay nacday xiisaha ay u qabaan maanta Soomaalidu inay wadankay ku soo noqdaan iyaduna waxa weeye fursad kale waxay fursad kale oo loo baahan yahay inaga faa'iideysto. haddaad good governance haysatid musuqmaasuq meel kuma laha dadku waa participation dadku dowladda inay ka wada qayb galaan say u dhan yihiin decision making inay ka qayb galaan waxa weeye sidee baa haddaba lagu gaari karaa maamul wanaagga good governance. araa badan baa jirta maaha ra'yigaynu saa yahay laakiin anigu waxaan qabaa in lagu gaari karo dimuqraadiyad one man one vote in lagu gaari karo waayo accountable xil waxaad isa saari kartaa dadkii shacabkii baa publiga xil isu saari kartaa laakiin publigu waa inay kuna doortaan kuna ridi karaan. tan hadda inagu aynu ku jiro oo ah tan ama odayaashu soo dooranayaan ama group soo dooran karaan يعني هو حل بيننا إنه نقطي يعني حل لكن سباها حل هيكسر waxa la rabaa in waxa way ciidan marka maanta u baahdo wali ma arag dawlad
federaal oo dhisay oo tiri ciidan Soomaaliyeed baan u baahanahay 10,000 20,000 oo ciidan u baahanahay 20,000 galmudug waxa ka rabnaa inta Puntland waxa ka rabnaa inta Soomaaliland waxa ka rabnaa waxa weeye Geeland waxa ka rabnaa Xarland waxa ka rabnaa Riyaland waxa ka rabnaa idin intaas qolo kasta waxa ka rabnaa deegaan ama gobol ama rijo walba marka ciidankaas marka wuxuu noqonayaa hadaan maanta roon waxa weeye garow ciidan ka qoraya Soomaaliland aan ugu qoraya hadaan roo ciidankaasi ciidan Soomaaliland Puntland la noqonaya lama reeba marka waxa la rabaa ciidan Soomaaliyeed oo sumad Soomaaliyeed leh saraakiil sidoo kale iyaguna waxa weeye waxay leeyihiin oo ay sumad Soomaaliyeed intaas oo janaal bamaanta jira wali dawladda ama madaxweyne ama muxuu ahay wasiir ciidan intuu yiri waxaan u baahanahay saraakiil Soomaaliya ee in muxuu ahay isugu yimaadaan halka rag baan ka xulanayna ma hayno waxyaabaha la tabaay ka mid tahay marka ciidan haddaba waa jira ciidan Soomaaliyeed tajeelay baa raba kuwa ruuxdooda hayntooda waa dhibaato sideedooda waa dhibaato aniga loo shaqeeyo arrinta mutaas baan ku dari lahaa kaliya waxa kale rag ayaa la qabaa dalkeena oo kale oo dal saan oo buraya hal qof waxba kama qaban karo waxa uu ka qaban karaa dadka oo dhan si ay u qabtaan gruubta dhan oo sutmaada dadka oo dhan si ay u qabtaan fikriga oo dhan oo la bedelo dadka oo dhan si ay u qabtaan dadka aqoontiisa waxay gelintiisa kor loo qaado waa marxsan hadda sayidul yiri dadka runtii waxa uu اتجاه ماشي laga fiirinayo xoog sii maadaama darbi dhisaan sameeyaan waxa ka sii qurux badan dadka aqoon ahaan loo dhiso oo qofka loo sheego waajibaadka dalku uu ku leeyahay iyo xuquuqdiisa uu leeyahay ama marka labadaas kala garto oo ana waxay waajibaadka dalku uu leeyahay waxa weeye xuquuqdeeda la sheegaa wadaadkaas hadalku yiri horta yaa heshiiyay Soomaali ma heshiisay waligeed ma la heshiinin ani 2,000 kilomitir meel u jirtaan ku dhashay garowe burgeeniina ma teeka marka Soomaali markay isku imaato oo ay dhahdo aniga khaladkaanan ka galay intaan qofan ka dilay intaan xoolan ka dhacay wixii ka dhintay Ilaahay ayaa la xisaabtamay wixii hanti aan ka haysayna waa kana aan iscafino isaamax oo fool soo fariiso ay horta nabad imaan kartaa marka dib u heshiisiin meeqa sana la heshiinayo dib u heshiisiin la sheekeenayo afar qof oo Puntland ka socotay afar South Central ka socotay isu tagaysay Soomaali waa heshiisay waligeed ma la heshiinin dawladda waa inay ka bilowdaa number 1 dib u heshiisiintaas la sheegayo oo dadkii wax kala galay isu imaadaan number 2 in la dhiso dadkii aqoontoodii oo qof wax garanay uu qabto maamulkii iyo mas'uuliyadii askari magaciisa aan dhigi karin qorile inuu ridamiya maya askariga nidaam baa lagu yaqaan meel buu deganaa dishibilin baa loo sheegi jiray saddex nimankan la hay shabaabka waxbay u baahan yihiin in la raadiyo oo warkooda la helo intaas aan soo baxay waxaan malaynayaa dhibka keenay in dadku uu aad iyo aad niyadiisu hadda u fiican tahay marka sidaas oo kale in shacabku niyad wanaagsan uu la yimaado kalsooni la yimaado taasoo ay la socoto la xisaabtan inay la xisaabtamaan dawladda markaa jira haddii aan shacabku hadlin oo dawladda ay doorteen ama baarlamaanka ayaan la xisaabtamin waxa weeye dawladdu waxay rabtabay samaynaysaa marka taasina wax macnaha markaa ma samaynayso haddaan qofkii la doortay aan lala xisaabtamin haddii uu ninka mas-uulka aan loo gelin waxa uu qaladka u leeyahay aan loo sheegin ee la eedeeyo keliya difaaca budgalaya waxna hagaagi maayaan laakiin marka si nasiixa wax loogu sheego oo qofka qaladaadkiisa iyo saxiisaba loo sheego wanaagna lagu bogaadiyo qaladkana loo sheego wax badan buu ka hadhaya hagaagi wadamo badan waxaa jira qabaa'il kala duwan ka kooban wadamadaas waxay raadinayaan sidii ay nation ku noqon lahaayeen annaga mushkiladeena waxa weeye sidii aan state ku noqon state waa maxay waa organization waxa weeye dadka oo dhan ay u siman yihiin dadka wax u qaybiya cadaalad u sameeya ka warqaba iyagoo dhan ay iska xakiyaan iyagoo dhan onboard ay yihiin marka si loo gaaro taasi waxa weeye in dadka Soomaaliyeed oo saxaab caqliga laysu keeno oo la yiraahdo sidee baan ma aragtay dawlad shaqaynaysa aan ku dhisnay taasi waxay u baahan tahay marka juhdi gudaha iyo dibadda ay u baahan tahay madaxweynaha Soomaaliya oo hadda la doortay waxaan oran karaa wuu haystaa codkii bulshada almost wuu haystaa maadaama gobolladii Soomaaliya oo dhani ay ku taageereen doorashadiisa si banaanbaxa oo ciidan soo abaabulin sida awgeed waxaan kula talinayaa oo kaliya in madaxweynuhu hagaajiyo oo kaliya qurxiyo muuqaalkiisa oo maxay tahay qowlkiisa
ficilkiisa iyo dareenkiisa uu u socdo waa ku dayasho fiican waxa qaadanaya golayaashiisa waxa qaadanaya bulshada Soomaaliyeed dabeedna markaas aynu ku gaarayna higsigeena aynu doonayno